kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararka dhinaca diblomaasiyadda waxa ugu weyn daawasha qiimaha leh dalalka Iran, Russia iyo Turkiga oo qorshe la yaab leh ku heshiiyay kaas oo dunida oo dhan Aisha ku hayso dalka Venezuela oo asaguna sheegay in ciidamo iyo calooshoodu shaqaystayaal ka socda dalka Mareykanka oo doonayay inay Afgambi ku qabsadaan dalkaasi ay qabqabteen isla markaana fashiliyeen shirkadda dhinaca tiknoolajiyadda iyo qalabka militariga ee dalka Turkiga oo daaha ka rogtay mid kamid ah maraakiibta adduunka ugu casrisan iyada oo ay indhaha caalamka haatan ku furan shirkadda Selsan dowladda dalka Mareykanka gudiyadeeda dhinaca baarlamaanku waxa ay gudi heer sare u magacaabeen in la indheeyo heshiisyada iyo waxyaalaha ka soconaya waxa lagu sifeeyay cilaaqaadka labada dal ee Mareykanka iyo Saudi Arabia ku saabsan hubka nuclear-ka ama tabarta nuclear-ka in la isweydaarsado dagaal culus oo ka soconaya dalka Liibiya wali ka soconaya 4-5 garjaho oo dagaalku ka qarxay iyo waliba wararkii ugu dambeeyay baan idin hayaa daawadayaasha qiimaha leh waa 6 bishii shanaad waa 2020 waa maalmo Arbaca waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabo markaan ugu horeysiyo daawadayaasha qiimaha leh madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka dhawaajinaya in laga yaabo inuu kala diro guddiga la tacaalista xanuunka coronavirus ee faahfaahsan madaxweynaha ayaa la sheegay in guddiga uu madaxda u ahaa ka hortagga ama la dagaalanka xanuunka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence laga yaabo in la kala diro isagoo sheegay in ay haatan dalku u diyaarsan yahay dib loo furo gabi hanbe isagoo ka hadlayay xarun soo saarta afjeebka waxyaalaha afka lagu jeebto oo ku taala gobolka Arizona magaalada Phoenix ayaa waxa uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka shanaa okiyaalaha la iskaga difaaco jeermiska laakiin uusan sidan af xirashada ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dalka Mareykanka oo laga qaado dadkiisa oo dhaqaalaha dalka Mareykanka dib loo furo waxa uu yiri waxa aan u baahanahay in dalka Mareykanka dib u furno laakiin waxa uu uusan meesha ka saarin khatarto ay sii socoto waxa uu dib u furistu waa inay noqotaa mid amniya oo ay noqoto gobolada dhan inay sameeyaan dib u fur oo isbadbaadi oo ah in dadka ay kala fogaadaan in afka la xidho inaan la salaamin inaan la isku soo dhawaanin iyo sidoo kale in dadka wada shaqeynaya ay kala fogaadaan oo meel kala fog ay ka shaqeeyaan goorsi horeysay ayaa dhakhtarka arrimaha u sareeya xanuunada faafa ee dalka Mareykanka Dr. Anthony Fauci ayaa ka digay in Mareykanku uu wajahayo dhimasho xooggan dhimashada Mareykanka ayaa hadda waxay magacaageynaysaa 170,000 oo ruux iyadoo sidoo kale laga baqayo inay sii laba jibaaranto baa dhimashadu marka dalka dib loo furo halkan kala saatan daawada wararka oo calaamada diblomaasiyadda caalamka oo dhan dalka Venezuela waxa ka dhacay qabqabasho la qabqabtay Israa'iil iyo askar loogu yeeray in ay yihiin ciidan calooshad shaqaystayaal oo militariga Mareykanka ka tirsan kuwaas oo ka qayb qaadanaya afgambi military oo uu doonayay inuu sameeyo ninka madaxtinimada dalkaasi isku cimaamaday Eliada Juan Guaido ee asaga dalka Mareykanka aad u taageeraan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa soo bandhigay xubno uu ku tilmaamay in ay yihiin dad la qabqabtay oo uu sheegay inuu hayo baasaboorkoodii baasaboorka buluuga ee Mareykanka ayuu soo bandhigay isagoo daraasiin baasaboorkaas gacanta ku haya ayuu magacyadoodii iyo sawirradii halkaasi tiriyay isagoo sheegay inay dadkan yihiin dad dalka Mareykanka ka soo duulaan tagay kuna soo duulay dalkooda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la weydiiyay arintaas wuxuuna sheegay inuusan waxba ka ogeyn wuxuuna yiri Mareykanku wax ka qosaya iska yar dawladda Venezuela waxa ka socda xaaladeeda wuxuu sheegay inay baari doonaan arinta isagoo yiri waan maqlay in ay dhacday arin noocaas ama inuu dhacdo noocaas ayuu sheegay madaxweyne Trump waaxda Pentagon-ka dalka Mareykanka war qoraal ay soo saartay ayay sheegtay in aysan dawladda Mareykanka wax fulin halkaasi aysan ku qaadin oo ah in afgambi halkaas la isku dayo afgambi maanan amrin isla markaana la kuma lihin baali laakiin shirkad fadhigeedu yahay gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay ku leedahay arinta ayagoo sheegay in halkaas u direen cutub ciidan ah oo ah ay yiraahdeen inay ka qayb qaataan oo ay ahayd bay yiraahdeen inay ka qayb qaataan xoreynta Venezuela hase yeeshee madaxweyne Maduro ayaa sheegay in dalalka Colombia iyo Mareykanku iska kaashanayaan inay dawladdiisa iyo xukuumaddiisa xoog ku ridaan kadib markii siyaasadda laga turroonaaday oo shacabka dalkaasi ay diideen waxa uu mahad celiyay dhalinyaro oo tilmaamay in ay ka kulmaysanayeen xeebaha dalka kuwaas markii ugu horeysay ciidanka amniga soo wargeliyay una sheegay ciidanka militariga xeebaha ilaaliya inay arkayaan doonyo xawaare ku soconaya oo ku qulqulaya xiriyo ciidan doonayaan inay magaalooyinka qaarkood khalkhal geliyaan taasoo dhalinyaradu markay taar soo direen kadibna laga howlgalay waxa ay u shiri waxay ku wada hadlayeen ayuu raadiyaha gacanta lagu qaato ee meelaha fog dadku iskala hadlaan taasina waxay noqotay ayuu yiri tan dadajisay inaan markiiba ka hortagno dhalinyaradu waxay xiriir la soo sameeyaan waaxda ciidanka ilaalada waxayna u sheegeen inay dhaqdhaqaaq khatar badan arkaan Mareykanka iyo dawladdiisu waxay ka mas'uul noqonayaan ayuu yiri howlgalkan laga guuleystay ama afgambigan laga guuleystay dalkaasi ayaa muddo
ku dhawaatan 2 sano iyo jajir waxa ka taagan khilaaf aad xooggan khilaaf wuxuu yimid kadib markii doorasho lagu murmay uu ku guuleystay madaxweyne Maduro hase yeeshee waxa taa ka dambeeyay ninkii gudoomiyaha baarlamaanka ahaa ee dalkaasi ayaa isaguna maalmo kadib isku cimaamaday kuna dhawaaqay inuu yahay madaxweyne dalal badan oo Mareykanka horkacayo ee kana mid yihiin dalalka Latin America ayaa iyagu sheegay inay u aqoonsan yihiin Juan Guaido inuu noqdo madaxweyne laakiin dalalka uu ka mid yahay Shiinaha iyo dalka Russia ayaa Mareykanka ku tilmaamay arrintiisa waali waxayna aad u taageereen Venezuela waxa sidoo kale aad u taageeray dalal uu ka mid yahay Turkiga iyo dalal kale oo xitaa ku jira gaashaanbuurta NATO taasina waxay dalkaasi ka dhigtay in curqabatayn xoogan oo Mareykanka ku saaro iyadoo Mareykanku uu ahaa dalka ugu ballaaran ee maamuli jiray biicigeynta saliidda Juan Guaido ayaa xataa waxa lagu casuumay khudbadii madaxweynaha ee 2 sano oo markaba u jeediyay dalka Mareykanka iyo shacabka Mareykanka madaxweyne Trump taasoo uu ka dhex muuqday isagoo aad shacabka u garaacaya halkan nagala soo taabtay wararkii oo calaadina diblomaasiyadda caalamka oo dhan warbixino iyo qodobo weyn baa inoo soo socda dabaysheena qiimaha leh fariina kama qodna wararka aan dib ugu noqdo xanuunka faafaha daran oo haatan la sheegay inuu dunida gaadhay 252,000 oo ruux ayaa xanuunka ugu geeriyooday dunida oo dhan sida ay sheegayso jaamacadda Johns Hopkins oo hadeerto warbixin soo saartay Johns Hopkins waxay leedahay numberka dadka kor ayuu u kacay soo ridanaya xanuunku mar walba kor buu sii socdaa wuxuuna haatan ku dhow yahay 3.5 milyan oo qof waxa ay sheegtay in dadka haatan xanuunka ka soo raystay ay yihiin 1.2 bali oo ka dhigan 1,200,000 oo ruux inay xanuunka ka soo raysteen waxa ay sidoo kale sheegaysaa Johns Hopkins in dalalka ay ka mid tahay Britain inkastoo tiradu aad dhimashadu ay gaadhay 30,000 kor u dhaaftay haddana in ay jiraan soo kabasho dhinaca in dadka dhimanaya oo yaraanaya dalka Brazil oo kamid ah dalalka xanuunka iska dhiga maray ayaa la sheegay isagana in dadku ay tartarba soo daadanayaan isla markaana xanuunku uu eegay mid dalkaasi si xoogan u warjaafaya fiidnimadii xalay kaliya waxa ku geeriyooday 600 oo qof ayaa leeyahay 7,000 oo kalena uu soo ritay ku dhawaad 115,000 oo ruux ayaa xanuunka la ildaran 8,000 dhimashada isku dar korbay u dhaaftay dalka Brazil madaxweynahooda ayaa ah mid kamid ah madaxda dalalka caalamka ee xanuunka aan haba yaraatee aan aqoonsanayn dalka Shiinaha ayaa si xoogan isaguna waxa uu dunida oga kulmaya dhibaaxooyin dhinaca عارضات waxay soo taraya hay'adaha shirkadaha aqoon-yahanada dadka markaas qareenada ah iyo dadka shuruucda yaqaan ee dalkaasi ku eedeynaya in uu mas'uuliyad darro weyn sameeyay xataa haduusan xanuunka sameynina uusan ka hortag sameynin ama uusan qayladaan ka dhigin adduunka oo uusan xanuunka adduunka uga baaqin inay ka hortagaan waxaana wararka ugu dambeeyay sheegayaan in xanuunka uu Shiinuhu si toos ah u qariyay oo ay run tahay inuu qariyay laakiin inuu sameeyay wali ay muran ka taagan tahay dalka Madagascar ayaa isaguna ku dhawaaqaya inuu hayo dawo dalka Madagascar oo badbaadooyinta Hindiya ku yaala qaaradda Afrika ayaa waxa uu sheegaya in dawadan ay hayaan ay tahay mid aad dadka u anfacday waxay ugu baaqeen hogaamiyaasha Afrika inay dawadan u soo doontaan halka madaxweynaha dalkaasi Andry Rajoelina ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la isugu yimaado magaalada ayuu yiri xarunta u ah dalkiisa si loo gurto ayuu dawadaas isagoo sheegay in magaalada Tanarifa dadku ay yimaadaan kana qaataan dawo dhir laga suubiyay oo sheegay in Afrika leedahay Afrika waxay u baahan tahay dawooyin ayagu ay leeyihiin isla markaana waxaanu hadda kaga hortagnay ayuu yiri dad badan xanuunkaasi inay u geeriyoodaan dalkaasi waxa uu horay u soo ritay dadka xanuunku soo ritay waxay gaarayeen 149 ruux haba yaraatay cid ku dhimatayna ma jirto waxayna ku tooqayaan dalkan in ay ka hortageen oo ay kaga hortageen xanuunkaas dawo dhaqameedka dalkan wuxuu ku yaalaa markaasi jasiiradda badweynta Hindiya ayuu ku dhex yaalaa waase qaaradda Afrika waxaana jira in dalalka qaarkood ay sheegeen inay qabanqaabinayaan diyaaradaha halkaasi ay geeyaan si ay u soo daabushaan dawadaasi oo ay sheegeen inay waxtar noqon karayso waxaana kamid ah dadka arrimahaas horkacaya madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli halka dagala socdaan daawadayaal wararkii oo calaadina diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn ee gaanka gandaro oo dhan ee shirkadda diyaaradaha Aer Lingus waxa lagu eedeeyay ayadana in ay sameysay khalad aad u weyn isla markaana meel kaga dhacday barnaamijka loo kala yaqaan kala fogeynta dadka ama social distancing waxa afka qalaad ugu yiraahdo waxaana sidaas sheegay mid kamid ah dadkii diyaaradda la socday oo diyaaraddaasi ka raacay magaalada London iyadoo u socotay magaalada Belfast ee dalka Britain kana duushay garoonka diyaaradaha waxay ka soo duushay magaalada Belfast waxayna u socotay garoonka diyaaradaha Heathrow ee magaalada markaasi London ee dalka Britain waxaana la arkayay diyaaradda oo dadku caadi isku dhex fadhiyaan mid kamid ah dadka diyaaradda la socday ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda haba yaraatee aysan ka jirin wax uu ku yiri kala fogeynta bulshada ah iyo in aysan jirin wax nadaafada oo diyaaradda ka jirtay oo xataa waxyaalahan gacanta lagu sifaysto ee gacanta jeermiska ka dila ee jeermis-suuliyaasha ah aysan oolin wuxuu yiri shirkadda Aer Lingus waxay u bareeday in ay jabiso wacadka ah in ay shirkaduhu fuliyaan oo ah in la kala fogeeyo dadka kuraasta ama la kala fogeeyo ama
saddexdii kursi baa uu qof u dhaxeeyo macnaha saddexdii kursi baa hal qof uu ku fadhiyo haatan war qoraal ay soo saartay shirkadaasi Aer Lingus waxay ku tiri waxa aan rabnaa inaan eegno sheegashada ah in bay tiri duulimaadkii ka yimid Belfast ee ku socday London uu ahaa mid waxyaalaha laga soo sheegay runtahay waxaan hubi doonaa in arintu ay saas u dhacday ayaa lagu yiri war qoraal ay shirkadda soo saartay waxayna yiraahdeen shirkaddu waxay mar walba raaci doontaa shuruucda iyo qawaaniinta ay dawladdu soo saartay ah in dadku kala fogaadaan taasoo ah mid muhiim u ah yiraahdeen nolosha dadka Facebookna waxa uu ku dhawaaqay in shirkado warbaahineed oo laga leeyahay dalka Iran ay ka mid yihiin dadyooga ugu badan ee dunida wararka beenta ku faafinaya gaar ahaan codeeyaasha dalalka Britain iyo Mareykanka bartilmaameedsanaya mid ka mid ah wakaaladaha wararka ee dalkaasi ay maamulaan wadaadada ayaa laga saaray dhammaanba koontooyinkeedii ama xisaabeedkeedii ku lahayd barta ama ciwaanadeedii ku lahayd barta Facebook sida ay sheegayso shirkadda Facebook madaxeeda arrimaha badqabka dhinaca security waxa loo yaqaan cyber security ama dhinaca siyaasadda arrimaha cyber security policy la yiraahdo oo la yiraahdo Nathan Glaser waxa uu sheegay in jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waaxdeeda la yiraahdo the Iran Broadcasting Corporation IRIB ay samaysatay boqolaal koontooyin oo ah usero been abuur ah oo loogu talagalay in lagu jahwareeriyo codeeyaasha dalalka Mareykanka iyo dalka Britain tan iyo 2011 ay jireen kuwaasoo dadka ku qubayay hadalku dhigiyo iyo warbixino aad been abuur ah baalay haatan waxay yiraahdeen xataa waxaanu saarnay koodii sharciga ahaa ee wakaalada wararka ay lahayd wakaalada wararka madaxeeda u sareeya Iran Broadcasting Corporation IRIB baa loo soo gaabiyo waxaa magacaaba wadaadka ugu sareeya dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei waana wakaalada maamusho inta badan warbaahinta kale ee faraha badan ee dalkaasi ka jirta ugu dambeyntiina waxay sheegtay shirkadanu in ay qaadi doonto talaabooyin kale oo ay Iran ka qaadi doonto dawladda dalka Iran war qoraal ay soo saartay ayay ku beenisay in ay leeyihiin koox wararka beenta faafisa oo target gareysata ama toos u abaarta dalalka codeyntu ka socoto kuwaas oo ay ku kala taageeraan ama ku dacaydayaan xubnaha qaarkood dalka Ruushka ayaa noqday dalka loo tirinayay in doorashadii 2016 dalka Mareykanka ka dhacday oo ku falaxashay isla markaana uu sameeyay dhibaatadii ugu weyneed iyadoo la sheegay in uu u janjeeray dhanka madaxweyne Donald Trump oo in badan markii dambe laga shakiyay qaybta labaad ee wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda daawasha qiimaha leh daqiiqadeyn